Halo, السلام عليكم mudane. Masha Allah fiican aan iska warrado. Waxaan rabay inaan kala hadlo hawlihii ganacsiga ee shirkadda iyo say u socota. Mudane waxaan hayay fikrad ku saabsan shirkaddeena iyo ganacsigeena soo socdo. Halo, niyow waxaad iga rabtaa niyow nimankiina shaqaalaha waqti laga qaadan kari maayo oo niyow saacad kasta way soo garacsaane bal waayo waan ku imanaya insha Allah. aad u maasantay mudane. Waxaan rabay inaan shirkaddii sidaan ku sheegayba aan horumarino. Markaa waxaan hayay qorshe cusub oo aan ku horumarino shirkaddeena. waad ogtaho maanta halkay taagantay shirkaddeena haddana waxaan rabaa intaa in ka badan inay socoto. niyow kaalay maanta sidii igu yeedhisay anigu niyow shirkadda kuma keenin inaad video duubto laakiin waxaan kuu keenay inaad ii shaqayso marka haddaanad shaqaysanan niyow anigu saan ku wada joogi mayno niyow aniga saan igu shaqayn maysid markaa waa iska tegi kartaa haddaanad mushaarkaaga qaadanayn oo shaqaysanayn anigu marba aniga waqti qaadanayo oo waxaan kudanahayga wataa inaad ii yeedhantaada video baa la duubayaa munaasib iguma aha markaan iima sii shaqayn kartid aniga niyow haddaad video duubayso. nin bartaa ka geeya ma yihiin la yidhaahdo ama lacagtaada qaado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب عبد الرحمن محمد سانيو أدبان وناكسني والله ما شاء الله دي هلكي رد ما يقول ما كريسة هلكي ريدي نفرسي جنينيا. سلام صاحب وما شاء الله صاحب في عليه والردو. أيوة يا صاحب إن شاء الله كوي مني. صاحب معاك وقول عيني وما أنت تشوقك ومسح سنة معاك خلدني. أيوة حني وقول عي. كم ganacsan iyo mudana ahaa shirkaddan ka shaqayn jiray haystay ayaynu saaka waxaan soo bandhigay mashruuc cusub iyo hawlo aan ku horumarinayo shirkaddii. Markii aan soo bandhigay aan la wadaagina nin ugu gacan saarayba wuxuu yiri ama mushaharkaaga qaado oo dib shaqayso ama shirkaddayga markaa waxaasina waxaan dee ka geeyay maahin wada ogeyday shirkadda halkan ka taagnay intaqi aan soo maray dhib iyo rafaad maanta halkan ka taaganahay. horta walaal waxaad ogaataa qofka qura ee loo baahanyay inuu haa dhaho inuu adiga yahay waa inaanad eegin waxyaabaha negatifka iyo waxyaabaha aan fiicnayn waa inaanad eegin qof qura kugu odhanaya maya waa inaanad eegin dad fara badan oo mujtamaca odhanaya ma samayn karaysid laakiin qura adigu waad naftaada waraysataa tidhaahdaa waxaan ma doonayaa ma jecelahay waxaan ma ku fiicanahay xitaa haddaanan ku fiicnayn waxaan ma jecelahay markaa naftaadu hadday tiraahdaa haa waad ku fiican tahay waa inaad hore ugu sii socotaa wax kasta ha kaa hor yimaadaan gidaar ha kaa hor yimaada waa inaad jebisaa. iyo saaxiib waruntahay horta aad baad mahadsan tahay dhiirigelintaada laakiin saaxiib qaladee marka hawl la bilaabayo waxay leedahay wax waa asaasa iyo saldhig u ah aniguna mar haddaan hawshaan saadagal waxa caqabadiga soo hortaageen waxa weeye ma hayo qalab dhammaystiran oo ku geli karayo kamarad iyo xalaha lamaamo. iminka waxaynu ku jirnaa sanad runtii sanado aad u casriyeysan sanado wax kasta oo aynu faraha ku haysanaaba aynu wax ku qabsan karayno hadda laga yaaba moobilkan iminka aynu hayno inaynu inagu maanta ka bilaabi karayno ama adigu aad ka bilaabi karayso kadib dhiirigelinta uu ka helay cabdiraxmaan suhayb deexeeye waxa uu go'aansaday inuu isagu keligii istaago waxa uu go'aansaday inuu qabto waxa uu weligii jeclaa waxa uu doonayay inuu weligiiba qabto oo ahayd inuu fiidiyoyo sameeyo fashil fara badan kadib iyo caqabado fara badan kadib iyo dadaal fara badan kadib iyo caajisyo fara badan kadib cabdiraxmaan waxa uu noqday haldoor ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee dunida maanta ku nool. niyow ninkaas meel wahay ninkii cabdiraxmaan ee shirkaddeeda ka shaqayn jiray. cabdiraxmaan waa ku salaamay saaxiib niyow horta saaxiib wadigii ogaayo waxaad ka mid ahay shaqaalihii shirkadda ka shaqayn jiray niyow markaa wanigii ogaayo niyow waxaan kugu sameeyey waad ogeyd markaa wanigii shaqaali markaana anigana waxaa ila kulmay hoos u dhac weyna xagga shirkadda ah markaa saaxiib niyow adna horumar weyn baad samaysay insha Allah. war saaxiib haayo horumarkii iyo guushii niyow horta wax dhagala maaha ma garatay aad baan horta ugu xumaa shirkaddii inta badan soo asaasin adigu tirada maarata warka xilliga soo sheegto anigana niyo horumar ma sha Allah waan gaaray tan waxay igu koos gareysay waan ka faa'iiday waxa weeye markii aan sameeyay fiidiyoyo badan oo aan ku horumarinayo noloshayda qaabo badan aan u dhigay ganacsi aan waday taasoo suurtagelisay inaan maanta heerkan soo gaadho
taana waxaa iga caawiyey nin saaxiibkayo Suhayb la dhaho dhiirigelin badan oo aad i siiyey ayaan maanta ku helay.